fursad weyn ay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan qiimiga iyo qaayaha badan oo runtii dadka Soomaaliyeed isugu hambalyeynayaan laba munaasabadood oo labaduba qaali ah. midda koobaad waa maalintii calanka, midda labaadna waa xukunkii maxkamadda adduunka ee ku aadaneed arrimaha badda. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan bahanbalyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana uga mahad celinaynaa guushan asaga keenay, asaga hogaamiyay, dadka Soomaaliyeedna asaga ilaaliyay. rabbiyo waa mahadsantahay. intaas kadib waxaan u malaynaa badda qayladooda waa badnaa sida saaxiibkii ay soo fiirinaa wuxuu sheegi doonaa isleeyahay. badda qayladooda waa badneed, madaxweyne xasan aana sheego fahamkeeda yaray. annaga marka talooyinkana la siiyay waxaa ka mid ahaa inaanan ka hadlin badda. cabdiraxmaan kolle waa ogyahay xukuumaddeenii, sababtuna waxaa dhici karta arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci inay ka yimaadaan dood ah hadalladeen. marka maadaama hadda la xukumo waxaa u malaynaa xooga yar waa laydin sheegi karaa. markii ugu horreysay oo Kenya aan tegay oo madaxweyne Kibaki aa joogay aan la kulanno guddi aan bixinay. dowladda Kenya guddi noo soo bixisay. annaga guddigeena waxaa madax u ahay Shariif Xasan. waxaa laga doodayay ajandaha laga hadlayo in meel la isla dhigo. marka annaga 10 ajandaan wadanay, dowladda Kenya waxay keeneen waxaan ku daraynaa hal ajanda oo badda ah. annaga markaan dowladda la wareegnay 6 xaafadood oo xamar ka tirsanaa madax ka nahay. ayaga laftigooda shabaab aan la jooga. war waxaan dhahnaa annaga bad kama hadli karnaa wax kale aan ka hadalno ma jirto. على كل حال waxaan ku qancinaa dawladda Kenya bad kama hadlayno. waa ka soo tagnay muddo kadib arinta dadaalka UN-ka iyo dawladda Norway ayaa bilaawday oo ku aadanay arinta continental shelfska. xukuumadda waxaa lagu qanciyay arintaas inay laga maarmaanta annaga iyo Kenya ana wax iska dhahno. Ra'iisul Wasaare Umar Abdirashiid isaga xukuumadda hogaaminayay go'aanka asaga iyo xukuumaddiisa qaateen sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan. laakiin aan ma la socodsiinin. subaxda la saxiixaya Cabdiraxmaan ay soo waca waa kana. wuxuu dhan madaxweynuhu arrintaas jirta heshiisa la rabaa in la saxiixo maxay kula tahay. waa fikir madaxan qabsado maxaa sheegaysaa. waxaan idhi waa saxiixaysaa ra'iisul wasaaraha warkiisiyeen. Cabdiraxmaan waa baqay. Cabdiraxmaan waxa xasuustaa amalayna. waxaan idhi ra'iisul wasaaraha warkiisiyeen wixii Ilaahay naga siiyaba. Umar aan u yeeray waxaan idhi Umar maxaa iga qarisa arrintan. wuxuu dhaniyo waxaan mooday inaa ogtahay see ku ogaana. markiiba qayla cirka isku darsantay. badiyay gateen. waxay noqotay aniga Umar iyo Cabdiraxmaan aan ka shakiyo. أنا عبد الرحمن واكنا أي عمر ولقى الناس كم ورث إن الأركب أركب أركب نك العقل وجهز استغفر الله. مركا إلها محل نجحوا ريي أرنتاس. رئيس وزراء عمر عبد الرشيد iyo عبد الرحمن oo ku maasanyihiin wasiirka badan aad joogay oo iga soo dacwada Cabdiraxmaan. waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda Omar, wasiirka gaashaandhigga Jurile, Shariif Xasan aan Nairobi joogay kullu ay soo dacwadeen. iyago qeylna ay soo waceen. marka alxamdulillah ilaa ma hadle taas xaggaas aan uga gudbaynaa. waa soo dhaweynaynaa go'aanka maxkamadda. halkaas waxaan ka garanaynaa sharcigu sida uu fiican yahay. Soomaaliya iyo Kenya maanta ma tartami karaan. laakiin sharcigu nin xoog leh iyo niman xoog leh kala ma yaqaan. waxaan nagala rabo waxa waaye dad sharciyeed inaan naqano marka. sidaasaan dawlad ku naqo karnaa oo macno ku sameey karnaa. dalkan mushkiladiisu waa sharcigoon la ixtiraamaynin. waxa ugu horeeyo sharciga duminayna waa madaxda. shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican, dawladnimada jecel, diyaar u inay hoggaansamaan, laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa madaxda dalka. marka waxaan rabnaa in dad sharci aan naqano
qodobkaasna halkaasaan rabaa inaan uga gudbo waxaan rabaa inaan ku ammaano madaxweyne xasan tilaabada asaga iyo xukuumaddiisii go-aanka ay ka qaateen maxkamadda inay geeyaan aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sidaas oo kale madaxweyne farmaajo ku adkaysiga oo ku adkaystay in maxay ahaato arrintu maxkamadda ay ku dhammaato asagana waa ku mahadsan yahay waxaan rabaa sidaas si lamida injineer saalixi raxmatullaahi calayhi iyo looyarada muna inaan ku ammaano dadaalkii sharci ee ay sameeyeen ee keenay guusha maanta aan u taagana ilaahay ha u naxariisto injineer saalixi aniga ma baranin laakiin runtii nin qiimo badan inuu ahaayaa lay sheeg qof aan jecelahay inaan arko ahaay anoo la ballansanaana ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala ilaahay ha u naxariisto intaas markaan ka gudbo guushan waa guul soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna haddaa taariikhdooda fiiriso garab waxa uu alla subxaanahu wa tacaala khataraha laga soo badbaaday oo midda hadda ugu dambaysa ay tahay badda ilaaha looga mahad celinaa subxaanahu wa tacaala marka waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo bad iyo dhul iyo cir ma ilaali karno iyo dadka joogaba haddaanan dowladnimada xoojin waxaan noogala baahan yahay marka inaan dowladnimada xoojino dowladnimaduna waxay ku dhisan tahay heshiis ummadeed heshiis ummadeedna waxa u baahan yahay in la dhowro maxkamadda adduunka dadka hadda garsoorka ka ahay waxaan maleenahay hal nin oo Soomaaliya ku jiro soo saas ma laakiin waxay gaareen dadka reer galbeedka waxa ay ka shaqeynayaan inay run ka sheegaan ma u malaynaya hadda waxay noogu xishaan maanta inaan leenahay laakiin qof walba wuxuu ilaalinayaa professionkiisa waxaan nagala rabaa sidaas si lamida inaan gaarno oo qofka shaqada loo dhiibay siday taa uga soo dhalaalo marka aad fiiriso ummadaha horu marana waxa ay ku dhisan yihiin waa intaas annagoo muslimiina annagoo ahla annagoo qaraabo ah in aan maalin walba isku tumanno ballanta aan ilaali weyno dowladnimada aan ilaali weyno qofka garabka u baahan aan garab istaagi weyno arrintaas waa arrin fiican ma ah nabi muxamed sallallahu alayhi wa sallam inuu soo baxo waxyaabaha u ahay horudhaca waxaa ka mid ah carabtii quraysh ee magaalada maka deganeed waxay ku heshiiyeen qofkii dulman inay garab istaagaan qofka daalimkaana inay celiyaan taasna waxay keentay inay u diyaariso nabi muxamed sallallahu alayhi wa sallam oo khaatamul anbiyaa ah oo furqaanka loo soo diray in la soo saaro waxyaabaha ilaahay ka difaacay reer maka waa badnaayeen laakiin waxyaabaha aad loo xasuusta waxaa ka mid ah asxaabul fiil marka aan u jeesano dowladnimada inaan xoojino inaan garab istaagno dadka u baahan garabka in la garab istaago aan wada istaagno sharciga inaan ilaalino taas aan ku gaari karnaa guusha waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dalkan wuxuu leeyahay siyaasad soo jireen ah oo xilliyadii dambe socotay oo ah 4 sanaba in la isdoorto xalka kaliya oo dalkan loo haayo waxa waaye 4 sano markay dhamaato doorasho in la galo hadda already sanada la dhaafay Sooma waa dhaqan aan fiicnayn kormee u qaada okay waxaan rabnaa inaan dul istaagno sanad ma aha bil ma aha maalin ma aha saacad hadda wixii ka dambeeya in la wada ogyahay saacadda doorashada 4 sano soo socotay dhacaysa in loo ogyahay rabo kaas wuxuu keenaa kalsooni wuxuu keenaa deganaasho wuxuu keenayaa dadku si nadiif ah inay u tartamaan yaa sheegi kara maanta maalin doorashada dhacaysa yaa yaqaan qof taqaana ma laha to be honest senator la soo saaray hadda iska joogan ka warramaydo waxba la dooraninba oo sanadku noo dhamaado wax sax ma ah
مسؤولين عن نهاي تدواوين عن نهاي رنتي عابين نقطة أرنتاس إن إلى لوينو نظام كيرا نوقرن أنا جاي عاب نقطة دل كان سيد الشيء جاي بقول كي بس ديت إنك بدن وحاب حي أدونك وحين احترامنا أدونك وشروع ضو تعالى إن لقوا كالمايو وأديك الشرع جاء إلى لويس وحكينا جماعين لقلبت محاكا دلنا يا مرك دل كان أنا كلية مجوجن وحبضنا الجوجة وحبضنا الجوجة وحاول أتكاكرنا دولة نمدنا نحوجنا هذا إسلام هاي سومالد ومهم ولا جم مارما سومالد أفغانستان ولا جم مارما نقول وجدنا مالنا على صوتك وحال ربعنا وحجرد وعنا هاي لكن مرحلة اللجوء هي مهمة دي إن نقرنه وعن كعد سنينا رئيس وزراء هي حكومة ديس مدحويناش الدولة قبل هذه أرنت الدور شوين كأنه ديجيا مالين أن وحلق بكرن إن أسفيرنا المرة ذلك وحوك صعد نظام كيسنا وحا أساس ودور شوينك أفرت سنة ومر لقبناي ولا صور دافي كذا الأمة فيرنا إن هذا وحان لنا هذا هل الدجيو هلا قبته سوى أكسن وعدالة ذاتك سوماليا ما أنت باهي وحي أقبان إني أركان مدح عصب وكلسوني أي سيان أو إصاد دورتين أو أي كسجان إني حقيقيان هملوين كذا مركا ولا صور دافي وحول بواسو أرجني صدق كسنة ولا صار دافي لبعتك كسنة كهر رئيسي توان كسنة كسيه الرئيسي خبرتنا إن الدولة نمو وإنتاس سيدا قدومي عبد حاشا وشاقي ويرتها الدولة نمو أنت عن كنا قان لكن وينها هرأس عنا كونا قدم بيا هرأس عضة مركا هوس الشاكي سنة لأن هذا عقل بدنها شاقنا لكن عقلك وحكو إيمانا يا عقلك الجماعي عقلك وذجرك عقلك الدولة النساء عقلك أمد إسوكينا كاسة عقلها وحال ليرا لبعض حال السوق هايسته محي سجرا لميرا ولا له إن كينيو وعدد وناكسن ودرس في عن صدق كسنة ولا صار دافينا ضد كينا وحيل قرب تجنايين ولا النمو يسودوين وأنا كم عسيين ضد قرواينا منه واقرنا أرنتاس إلى هنا الدرس نقدر نجي وأنا هانينا قضية بدنا ما دام أي محكمة تكتي وفي عناد إن محكمة كهر لحلية وهشيس لقى جار مركي محكمة لا تجانا محكمة وين حكم الرداء وإنه لغوك لبحة مركي واحد ربنا إن عندهنو وكما سنتهين دالكين يا جرب جوك قدرت كسرنا ذا جرب جوكتين درس في عناتهين لكن هذا محكمة ده يقول قارته وحنا من سنة وياهي متك حقها هاي ومحيها هاتو وناك سنة أنت أصلا ربع فرين تاس dadka Soomaaliyeed inay og yihiin inay daris fiican yihiin inaan ka muujiyo halkan aad iyo aad ma santiin. Assalaamu alaykum.